albeerka ahayd gaariso lagu magacaabay dadku seexan jireen mowlac yaroo masaajidina ka dhex dhisnaa ayaa qoladii soo qaxday meeshii bay degeen qaarkood markay degeen waxay bilaabeen bicmushtari dad bicmushtari aad u yaqiin ba ahaan waa ku ammaanaa anigu bicmushtarigan soomaalida wuxuu bilaabmay 90kii markii burburkii Soomaaliya marka runta laga hadlo iska daa Soomaaliya nin madow bicmushtari Kenya waxa dhici karta bulshado inay qaar lahaayeen laakiin bicmushtarigan middle classka hatta madowgu may ungurayn jirin niman Hindiya ayaa waddanka iska haystay waxaa noo yimi 91kii dadkii qixii markay burburtay Soomaaliya markay yimaadeen waxay ahaayeen dad xora oo xagga bicmushtariga ka xora oo yaqaan suuqan iminka Gaarisa wuxuu la baxay Gaarisa Lodge baa la oran jiray albeerka ay ahayd gaariso lagu magacaabay albeerka ahayd gaariso lagu magacaabay dadku seexan jireen mowlac yaroo masaajidina ka dhex dhisnaa ayaa qoladii soo qaxday meeshii bay degeen qaarkood markay degeen waxay bilaabeen bicmushtari dad bicmushtari aad u yaqiin ba ahaan waa ku ammaanaa anigu sariirihii ay habeenkii ku jiifsanayeen ayay maalintiina dukaamo ka dhigeen adigu bal waxaa la isweydiiyaa alaabta siday u keeni jireen alaabtii Gaarisa Lodge horta sidaasay u baxday magaca Gaarisa way socotay guri labaad baa lagu xijiyey mid saddexaad baa lagu xijiyey markii dambe waxaa la yidhi maaban dukaamo furno markaasaa waxoogaa la bilaabay horta bicmushtariga Kenya ama Soomaali ahaato ama madow ahaadeen haddii aan la taxgelin aan la qorin anigu taariikhdan hayo reer Soomaaliya bilaabay reer Soomaaliya ayaa markii ay bilaabeen waxaan aad baan xogaal uga ahay aad cid gubtay ma jirto laakiin waxaa la odhan jiray waxbaa gubtay laakiin waxaan u malaynay aniga short siraadku xagga siraadada markii wax la samaynayay albeerkooyin yaryar laga dhigayay oo wax lagu iibiyo in nalku keenay laakiin dadku waxay yidhahdaan waxaa malaa hunuud baa gubtay laakiin wax xaqiiq wala haya ma leh markii la arkay bicmustarigii inuu soo koriyo oo xaafaddii la bartay dadkii waxay bilaabeen in ay guryihii madow baa badankooda lahaa Gaarisa Lodge islaan Yasmiin Faarax la yiraahdaa lahayd ay ku bilowday inay dhisto dukaamo ka dhigto Bangkok oo ku xigtayna ayadana
gurye ahaayeen markii hore waxaa lagu bilaabay in la habeeyo oo dukaamo laga dhiso oo qolqol loo xidho adigu suuqu horta siyaasuu bilaabmay reer soomaaliyana bicmushtariga bilaabay dadkii kale soomaaliyeedna way ku daydeen markay arkeen way ku daydeen haddaba hunuuddu ama hindigu wuxuudu sir bay ahaan jireen soomaalidu waxay bilowday inay madowgii kaxayaan oo ilamaa meeshii alaabta laga keeniyey dad xaasidiina maaha hataa madowgii bay bicmusharigii bareen markaa suuqa gaarisa horta caynkaasoo ku bilaabmay maanta wuxuu gaadhay heer east and central africa uu suuq u yahay habeen walba gaarida la raro uganda burundi tanzania meel walba suuqii uu gaadhay maanta waxaa weeyaan dhowr iyo 40 mool inta iminka shaqaysa waxay soo kordhiyeen Kenya waxay tiraahdaa shaqo abuur baa dadka la doonayo in loo abuuro Soomaalidii haddii ay marar badanna waan ka hadlay waxaan idhi Soomaalidu refugee ma aha yaan loola dhaqmin sidii refugee ha loola dhaqmo investors waxa u shaqeeya baan idhi ilamaa 100,000 oo guryaha dumarka ka shaqeeya ayaa xaafadda islii u soo shaqo taga ilamaa 50,000 oo taxi ayaa u soo shaqo taga intaa soo xamaaliina kumaankun xamaaliina ayaa u soo shaqo tagta waxay noqotay xaafaddii islii inay shaqo Kenya u abuurtay dadkii wadaniga ahaa inay u abuurtay waxaa la doonayay inay dawladdu taxgeliso laakiin dawladdu markay taxgelin lahayd marka ay madaxdoodu u sharaxaan ay yidhahdaan dadkan waar maaha refugee dadkan waa dad keenay shaqo abuuray shaqadan iminka ka socota ee customka iyo meel walba cashuurta laga helo waa dadkii bilaabay madaxdii baa ku jiibsatay maxay noqotay 2006 ururka Isli Community and District Association wuxuu aad dadka ugu doonay in ay helaan wax sharciya ay ku shaqaystaan dawladdii markaa jirtay way naga aqbashay waxay siisay card alien card la yidhaahdo degnaasho uu ninkii ku shaqaysan karo baan ku furan karo license ku goosan karo aanu vote un ridi karayn laakiin wixii kale xaqa u ninka wadanigu lahaa ay leeyihiin waxaanu weynay wax baarlamaanka geeya oo sharciyeeya halka aad iyo aad baan ugu dhaliilaa madaxda Soomaaliyeed aad maxay noqotay Soomaalidu waxay ahayd minority aad u yar maanta Soomaalidu meel walba way ka muuqataa maaha inaan wax ka helo laakiin magaca oo keliya ayaa igu filan numberka oo keliya ayaa igu filan laakiin waxaad moodaa madaxdii dawladda ku dhoweyd inayba u muuqan ay wax kale u muuqdaan malaa kursi baana laga qaadi iyo reer hebel baana laga badan iyo markaa waxaan leeyahay bicmushtarigu horta sidaas ku yimi xaafadda islii istorigeeduna kaa weeyaan
horta ilamaha sagaashankii horta mid baan ku soo ilaaway aan doonaan ku noqdo markii gobonimada Kenya la raadinayay 58 baa la tagay London waa shirkii lagu soo qaadanayay istiqlaalka Soomaalidu markaa waxay doonaysay inay go'aan oo walaaladooda raacaan London waftigii tagay waxaa martigeliyey jadaa'idka oo dhan ee London Telegraph Sun kulli wixii jaraal ah ayaa u yeedhay way yaabeen dadkan doonaya inay ka go'aan dadkan xiriijibaan su'aalay weydiiyeen inadin maxaa jira ninkii spokesmankaadu ahaa wuxuu nin aad iyo aad u maskax badan wuxuu yidhi annaga Soomaaliyana la yiraahdaa wax dagaal iyo waa niniga badin iyo waxa marna ma niraano mana baqano wax kale oo dhan ka baqi mayno waxaan ka baqaynaa suuradan aan walaaladayo u ekayn in lagu midab takoora waa 1958 tii baa dhacday waxaan u imanayaa su'aashaadii sagaashanadii dhibaato badan baa lala kulmay ilama iminkana way jirtaa ayadoo runtii Soomaalidu dad firfircoon yihiin ayaa xaafadda Islii waxaa ka dhacday in dhowr jeer la hujuumo xag Soomaali ahaan loo hujuumo oo aan loo abayeelayn kani waa Kenya kani waa Soomaaliya kani waa refugee ninkani xaq ma leeyahay refugee ku xaq buu leeyahay dunida oo dhan refugee baa taga jooga askarigu meel walba ku joojinayo horta su'aal aad u wanaagsan weeyaan waxaan u baaqi lahaa baaq oranaya madaxda Soomaaliyeed aad bay dadka Soomaalida u gabeen sababtoo ah waxay matalaan iminka qolooyinkan kale ee aan waddanka la degannahay haddii Kisumo laga soo doorto oo nin jalwa ah oo Mombasa degan wax gaadhaan balamaanku qaadliya oo u danqaniya laakiin waxaad u malaynaysaa qoladii Soomaaliyeed inaanay u danqanayn Soomaalida walaalowda mooy aad waxaan ugu xishmeeyaa markii ay Soomaaliya burburtay madaxweynaha keliya yiri la soo dhaweeyo yaan la dhibin dadka ayuu ahaa waana boqol jeer baan ugu mahadnaqnay oo ugu tagnay walaaladayo waxay noqotay si fiican runtii ma dawlad ahaan mise shicib ahaan dawlad ahaan mishinarigii shaqaynayay taana khusuusan booliisku eedda cid walba ma leh booliisku si xun buu Soomaalida u la dhaqo meel ay joogaanba laakiin ilaahay gacantooda furan ay isku furfureen laakiin shicib ahaan wax dhiboo kala soo gaadhay Soomaalida meel walba ay joogaan ma jira markaa waxaan odhan lahaa mudanayaasha laga soo doorto ama Nairobi ama NFD Northern Eastern waa inay ogaadaan ninka Soomaaliyeed ayaga uu dibutaatiya waa inay ogaadaan
dhibka haysta in ay dhiba iyagu leeyihiin ay ka danqadaan maxay noqotay kaadh alien kaadhka haddii baarlamaanka la geyn lahaa oo la ansixin lahaa iminka sharci bay wada qaadan lahaayeen dadka meesha la siiyey berigaan dhowr iyo 30 kunna way ahaayeen dadka la siiyey dadka bicmushtariga keenay ee meel walba dhisay waa dadkii waqtigaa maanta waxaa loogu bedelay kaadh la yidhaahdo refugee oo mar walba lagu oran karo xerada qaxootiga iska soo xaadiriya beri dhoweyd ay linda inji operation ay lahaayeen way soo rogeen warqaday siiyeen ay yidhahdeen iska xaadiriya kakuma iyo xaga dheer iyo iska xaadiriya xaggee dunida lagu arkay nin dukaankiisii lagu leeyahay ka bax iyadoo markaa waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeedna dhib baa haysta meel walba ay joogaan waxaa haysta reer hebel ayaa haysta halkan waxaanu abtirsiinadu waa 42 qolo ay Soomaalidu ku jirto abtirsiinadu waxa weeyaan Soomaali iyo Kukuyo ayaa loo tartamiyaa ee loo tartami maayo daarood ama dir ama hawiye taana waa in maskaxda laga saaraa markaynu gurigeena joogno dhinaca wax dhiba ma leh haddaan iska qaadno laakiin halkan kuma ogaa iyaa tahay Soomaali baa tahay waxaan marag uga soo joogay mar Nairobi rabshad yar ka dhacday suuqa Globe Cinema meel la yiraahdo in nin xabashiye la digay oo la yiri Soomaali tahay ma xabashi baan ay Soomaali tahay ka soo dig marka waxa weeyaan abtisiinadeenu waa inay noqotaa Soomaali iyo wixii aan cagaha ku qaadan doono maxay noqotay majority ayaa meesha la doonaya waxa la soo saari waayay tiradii markii tirakoobkii la sameeyay Soomaali sababta loo soo saari waayayna tiradii laga fuliyay may noqonay tiro 3 laab ka badan ayay noqotay marka waxaan loo diidiyaa inaynu is ogaano quwadeena Soomaalidu ma yara haddaynu number 4 hayn number 5 baynu nahay 12 qabiil wax walba waan doonan karnaa Nairobi waxaynu ku joognaa ilaa 300 oo kun oo Soomaaliya dibkana haysta isma ogin haddaynu dad is ognahay oo community leh oo ismaqla 2 kursi 3 kursi baarlamaanka waan ku helnay laakiin waxa laga yaabaa kan aynu nasiibka ku helnay iminka intaynu soo wada raacno isagana qacanteena ka baxo intii laga fikiri lahaa la oran lahaa xafadee baa yara fudud sawti langata 200 kun oo Soomaaliya degan in registerka laga sameeyo waqtigana voters ku soconaya waxa soo dhan la qaban qaabiya laakiin hadhow maalinta ugu dambaysa hadii la soo kaco marka waxaan oran lahaa Soomaaliduna sidan ay sudaanto qabyaaladna iska daayeen maxay noqotay xabaal baa la geliyay dad muslimiin oo nahay awlaadaadii baan ku raacay ooridaadii baan ku raacay marka waxaan ku soo gabagabeynaya Soomaali sidan ay sudaanto madaxduna sidan ay sudaanto